قعدت الحكم قدرت تصبح ديرنا ووضع أسماك يا بنت كودتك وين أكين أسكدون waxaan duubana kursigan man la kaamirada man wada qaadaysa بس أنا واضح يا كاير فوق يا ولد. لوقت أنت تجي ما خاد بجوتي أيوة تجي. هذا ويلكم حقوق حسن ما يدري اوكي هاد برنامج كان بلاون ديار متى برنامج ما ها ديار هاخف لها فرع عدوية. ها دقفتان يسوي حق له سامية بنا ديار متى ما يدري ديار متى هم كلها اسمه why so mad out كان حقي قلب قبل ما حق دعك عاو اوكي هي are you ready الحمد لله كان مصدرك يا عباي وحرفة. هذا اوكي واي بيكوز هذا كرسي بون ولا قاعد بص جيس تو جيس كاميرا تقبل شكل كل جرمان هذا هذا سوري. ما أنا بلا عندي برنامج كاميرا واسك صوت برنامج official نو بلا هالمرة. هاي بس انت صور تراها اوكي هاي اسمه ما يعمل بقولي مش كاميرا ما ترى مقاط ما انت صور تراها سويسة يعني دايما انت سوا كتراها مو اوكي هدوا بلا اي ريدي سمان كوفي ما سنكين محا تنتظر التميس اساس كلام هذا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا فيديو كله عصب وان ربنا إنان runtii dul istaagno wax badan aan ka hadalnay arrimo badan oo dhacay iyo xaqiiqooyin iyo waxyaabo runtii dunida ku cusub marka si loo fiiriyo laakiin maanta waxaan dul istaagaynaa arrimaha jecelka waxaa soo aragteen lamaanaha aan u bixiyey lamaanaha qarniga waa rashka boy iyo xaajidiisa asma naanaysa leedahay asman laf miya asman beauty wax noocaas camal laakiin asman ka soo qabo magacyada cusub oo runtii had gadaal laga darsanayo dhawaanahan waa waxaan ugu cusub waayo laakiin intaa kaftan waaye asma iyo rashka boy waxaan ognahay inay yihiin lamaane laakiin video soo aragteen ka duwan yahay jawiga aan dul istaagna maanta beri hore waxaan maqli jiray dabcan waxaa laga yaabaa in waxyaabaha aan sheegay dadka qaar aysan war u hayn laakiin inta qaarna runtii ay og yihiin ama la socdaan waxaan ogaan jirnay buwaag jecel oo runtii macnaha ka sheekeynayo dhacdooyin qisooyin waxyaabo la mid ah oo markaasi u fiiris ay ku qoran yihiin sheekooyin jecel oo ku saabsan wax walba wiil iyo gabar isjeclaaday camal qaabka isku jeclaadeen qaabka isku barteen buwaag yar waxay ahaayeen yar oo lacag yar la geli jiray oo la wareejin jiray dukaamada lagu wareejin jiray inta badan buwaagta ayaka ah ayaan waxaan xasuustaa maalin sheekooyin qosol badan waxaa waaye macnaha hadda sheekada ayada buug aan ku arkay waxaa moodaa in lamaanaha hadda aan soo qaatay ay si real nooga dhigeen oo inaa xasuustii ma aqaano buwaagta waxaa ku qorneed oon adiga ka socoto nafku jecel ku socoto naf la oomayahay naf la jecel iyo camal salaan kasoo go'day kashti laabta waxyaaba noocaas camal adi oo bilow camal ahaayeen oo introduction camal ahaayeen marka sheekada gudaha loo sii hoosgalaan runtii waxaan u tagi jirnay dadka isku barta dagaalka ama rafaadka ama safarka isku barto in jecelkooda uu guuleysto inta badan that was the main point of video u sameyn wax kale ma aha lamaanahan dabcan waxay isku barteen qajajac iyo qababac iyo durug iyo kama durqay iyo isbiirsan oo dhexeey iyo dabcan video soo ardan bilowgiisa ugu dambeyn maantana waa nin iyo xaajidiisa ama nin iyo marwadiisa andhaho aan u bixiyey lamaanaha qarniga haddaba waxaan rabaa sababta aan u bixiyey lamaanaha qarniga inaan dul istaagno waan kasoo hadalnay inay dagaal isku barteen runtii waxaan arkay video kale oo kaas laakiin film u ahaa kan laakiin prank u ah kan filinka ah waxaan ku arkay is exactly ayadan sheeka oo book hadda ka hor aan ku arkay oo ah wiilaa socday jaraanjaro ka dagaayay gabadha ka hor imaatay buuga ka dhacay ciyaal iskuuliga fahmi kara waxaan ciyaalindin fahmi karaan macnaha gabadha buuga ka dhacayo buug oo adiga chemistry and biology camal ka dhacayo wiilka dhaha soo qabanayo aragtida kuwa is arkay ay jacayl ku bilaabaan wax noocaas camal adi macnaha hadda sheekadooda film waxaa jira hadda ka hor ay dhigayeen oo asmo iyo gabar kale oo gabadha la joogta umaan hadda la sawiran oo prank la sameynaysa I mean ayaa la joogeen marka meel jaraanjare fadhiyeen
rashka boy soo baxay rashka markuu soo baxo wax baa ka dhacay fura ka dhacay ama ayadu ka dhacay ama soo ka dhacay something like that marka waxaan moodaa marka sheekadoodaba inay nooga bilaabeen filim bilaaw ah ultimate hadda aragnay laakiin sababta aan u dhahay lamaanaha qarniga wax kale ma ahan dabcan waxaa soo aragtaan hadda ka hor ayagoo tiktok live xalfad sanad guuraa ku dhigtay waa lamaanihii ugu horreeyay nolosheeda arko tiktok live xalfad sanad guuraa ka dhigto marka waxyaabaha kalifa waxay ahayd un dabcan waxaa lasoo gaaray xalfadooda sanad guurada ahayd waxyaaba qaar waxaa jira runtii aad uga ammaan oo ka mid tahay gurigooda camirteen dharkooda iska xirteen tiktok live waxaad daawanaysay more than aan dhaho adi 12 kun camal aad daawanaysay tiktok livegaas xalfadda dhigan lahaayeen intaasoo qof horta ma daawateen number 1 number 2 qarash ah marka loo fiiriyo waa reer aan dhihi karo waa budgetkooda ay la socdaan markaas u fiirisid family plan hadaa maqasho kuwan number 1 waa xalfad hooda la kireen lahaa dadaa cunto loo gadi lahaa gaariyaal micnaha lasoo kireen lahaa ama la raaci lahaa qarash fanaana soo kireen lahayd music bilaayo adiga wixii dhanba waxay dhaheen maya okay rashka boy dj iska dhigay isagaa معناها موسيقى شتي سمعت دي سويس اسكو ادستي تيك توك لايف waxa ka baxay kili waxa way on qadka kili ee gadeen oo $5 habeenkaas ay ku bashaaleen macna lamaanaha qarniga waxa uu dhahaa inta kali ma ah wax kala soo socda hadda digina okay waxyaabaha qarniga waxyaaba ka dhahay waa lamaanaha qarniga wax kala dhahay waxa waayo waxa ognahay lamaanahan in badan social media lagu jarjaray inta ka jar inta ka mar gabadha asmaata waxa la ninka naag bay ka dhacday asaga waxa la waa dulli socod wuxuu socdaa sidii oo laga rooni camal u socdaa cilmi camal nin waalan waayo dantiisa ma aqaan shoobista waayo waa beenaalo waayo kaba uu leeyahay ku socday waa alay taxal waa la galay inta laga galay ugu dambeyn wixii ayaga ah oo dhacay dhan wixii guulisteen that's why aan leeyahay lamaanaha qarniga waa in lagu magacaabo lagu qoraa labadan qof waa fikir aan wato dabcan hadaa qabto fikirkan aan qabo commentiga runtii inuu wadaag fikirkaaga waa inuu muhiim runtii waa lamaana soo jiitay lamaana walbana taariikh walba isku barteen I mean halkan aan ku soo bandhigin doona waa lamaanihii oo koobaad waxa qad ku soo jiro dexdal roosha iyo xajidiisa farxiyo waxa ku xiga lamaana kale hadda inii sheego aliyaysiin oo qissa isku barteen iyo hadda sida isku yihiin marka aragtay masha Allah dhehaysto oo TikTok YouTube Snapchat Instagram caanka ah oo cad min sheegay qofkii ogaa lamaanahaas comment asan loo soo wadaag runtii waa lamaan isku kursaday dabeeqadii sanadkii tagay 2021 inta ma dhaafay soo baara rashka boy asma waxaan leeyahay hambalyo runtii waa soo jabhadiseen dabcan de aflagaada fara badan iyo caay fara badan oo asma nafteeda loo geystay oo la dhahay waa ninka anaa ku baray gabadha badan dhahay maqla ninka anaa ku baray anaa saan ku yeelay fadhigay ku baratay gurigay ku baratay jikadey ku baratay musqushay ku baratay laakiin ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa waa ka guuleysteen wixii ay ka ahayna deg jala qoma dhigeen wax wanaagsan kaas u fiilis dadka bini'aadanka ah dulqaadka iyo samirka waa waxa lagu kala hormaray runta inay sheego waayo waxa laga yaabaa in lagu caayo waxa laga yaabaa in lagu dulmiyo waxa laga yaabaa wax aad ahayn in laga sheego laakiin marka u samirtid u dulqaadatid oo adag mujid kii shalay ku caynay biri markuu ku arko in wixii uu ku caynay aadan qaadanin hor ugu socotid waxa laga yaabaa inuu isweydiyo dhaha qofkan shalay waa dulmisay waa caysay wax walba ku sheegtay dhig jilku masiina ee amaan si camal asaa qofka laga yaabaa inuu isku laabto hadaad soo caynay asoo abragaadeen marka hala kala roonaado dadka lamaan dhaxdoona ha laga baxo shaytaan badan jiro ognahay qof walbo lamaan labadan kaliya ma ahan qof walbo lamaane ah oo caan ah dadka caanka dhibay qabaan dhaxdooda ha laga baxo amaan ha la siiyo waa fariinteeda ugu dambeysay asxaabta cusub nagu soo birtana waad mahadsantihiin asxaabta kaleetan runtii soo dhawaada channelkana subscribe inoo saar